ساعة فربضان ما شاء الله مركا إن وحاجرة xilliga salaada subax waa ay dukataa laakiin dhibaatada ayaa waxay ka jirtaa habeenkii oo aysan sugi karin salaada cishaaga sababtoo ahna waxa jira daal fara badan salaada waqtigeeduna aad ayuu u dambeeyaa oo ilaa iyo 23 saac marka aan cishaagu waxay dukataa marka qaarna waa ay seegtaa oo ma dukato oo waqtiga salaada subax ka hor ayaa uu ka gaaraa marka miyuu banaan yahay in cishaha waqtigiisa la soo hormariyo jazaakallahu khayran الحمد لله بقدر رحمه سؤال شنو waxay ka timid wadamada aad inoo ka cimilo duwan wadamada habeenku yaraado xilliga kuleelaha ama samarka la yiraahdo oo laga yaabo 4 saac 5 saac inuu cisho gaaro salaada subaxna 8 saac bar 9 saac ay timaado xilliga qaboobaha laakiin way maalintu yaraato oo laga yaabo cishaha in 6 maqribnimo cisho la tukado صلاة الصبح لحدة الصبح نما وتضوى الصبح نما لا تكذب والله يطول ساعات أو بحيث مالك قاركود عشاء صلاة الصبح سؤال شنو حنفرق وحيل لحير تحلق كل إله مالتنا بدنته وعشاء هذه يكون يريح حلق عضيتها يدتك أما ضدك شقية أما ضدك أرديدة أما ضدك والدك من نوم السهل أنا عشت كذا صلاة الصبح صوت عشاء دي شن ساعة تكذب 9 ساعة صلاة وح لو سو كعيو ساعة وح كدي نحفي على مسيحن كرو 10 ساعة marka la gaaro waa in la kaco la diyaar garoobo shanta qaar baa baxaya shantii barka qaar baa baxaya qaar baa lixda baxaya diyaar garoob badan bay u baahan tahay waalidka hooyooyinku qofkii arday aadayna dee hurdo maalin ma jirto kii shaqo aadayna hurdo ma jirto hooyooyinka guriga ku soo harayna dee carruurtii qayb baa ku soo hadhayo iyagu maqrib ba seexday lixdiina soo kacay oo hurdo oolin oo laga seexan karin duruufahaas intaan garanayo waxaa raajix ah labada salaad waa israacin karaa hooyooyinka kaliyana ma aha si guud iyo masaajidu way jamcin karaan intay xaaladu saa u adag tahay maqribka iyo cishaha waa la israaciyaa oo maqribka marka la tukado baa cishaha la tukadaa labada marka la israaciyo bay dadku maqribka waa laga yaabaa in 3 saac iyo 4 saac la tukado وحلقينا وتعيش لا تكذي إلا قلب هذا اللي سيحنيه مرة كده والله صلاة الله عليه إسرائيل كرا لبعتهم لها حالة دهتي اللي كتشرب بالله توفيق جزاك الله خير جود هندا وضيال انت يان كسوق بجبيني ناتضبات كان برنامج كسؤال شبل إيه صومالي كابل أجري أحسنات على السوق وبكرين إيه باكسي وحال كان كسوق بجبيني يا الإمام بالجوابات سؤالها نصدرتين الشيخ محمود شبلو برنامج كنا جلس وقيب جلاه دنكا فرصمada iyo kamarada barnaamijka waxa uu ahaa Cabdullaahi Axmed Cali intaan dib u kulmi doono wixii kale ee su'aalaha ciwaanka barnaamijka ayaa noo balan ah sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.